الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. آية التضبية طبعا سورة المائدة. قال الله تعالى: لقد كفر ابن موحى قالوا بي الذين قالوا كويري إن الله إلهي هو المسيح ابن مريم ومسيحي إن مريم كو إلهي كشيغا ابن قالوا بي قل وحاتنا نبي محمد فمن يملك من الله شيئا إلهي دفاع كريا وهرتشوك سنية إن أراد هدو إلهي دوره أن يهلك إنه ديله المسيح ابن مريم عيسى هنا مريم يدك إلهي كدغتين وأمه هو يدي ومن في الأرض جميعا هي خلق قدولك كل نوران انت إلهي هدو دورين بابيو هلاغو بل يا دفاعية ولله إلهي كلي وحا أصبنا ملك السماوات والأرض لها انشها السموين كي يدولك وما بينهما أي انت كدحيس يخلق ما يشاء وحضانوا أبوراه والله على كل شيء قدير وحول بإلهي كي كروي. وقالت اليهود والنصارى لبدا قولك قال دي وحيد هذا يهودي يكوي كريستنك نحن أنه أبناء الله إنما دي إلهي باننا وأحباه كو جعلا باننا قلوا جوابا وحت هذا وهدا فلما يعذبكم محيدين كو عذابا بذنوبكم قففكين بل كالا يا إلهي وبضملها أنتم بشر إذنكم وحاتين بني آدم ممن خلق ضدكم إلهي أبو ري كمدا يغفر لمن يشاء عدوا دونوا إلهي ودن بدافع ويعذب من يشاء عدوا دوننا إلهي وعقابا ولله كلي إلهي وحوسقنا ذو لي ملك السماوات والأرض لها انشاها السموين كإيا نلك وما بينهما إيا انت كالحيس وإليه حقي سأنبع آخره المصير ما شاء الله لابنا إياه إلا دقيا وحقي سآخره. قرآنكو وحينو شيغيا دين لأنت كل عضي dadkii kitaabka la siiyey oo shaydaan bay raaceen iyo wadaadadoodii anbadee lumay ee bidcada iyo khuraafaadka diinta ka dhigtay warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim ila ibtigaaa ridwaan illaah famaa racawha xaqa ricaayatiha suufinima iska abuurteen iyo waxaan diintaba ku jirinba oo khuraafaada. marka madhabaha kristanka ee kala duwan berigii horena magacyay lahaayeen casrigan aynu joognana magacyay leeyihiin aragtida ay leeyihiin waa iska aragtiye oo wixii aan caqiido ahayn iska aragti un buu noqonayaa waa iimaan iyo mawaaqif baa lagu tilmaamaa shaygu markuu daliil leeyahay laakiin marka aanu daliil lahayn waa iska aragti khuraafaad oo qaarkood ay qabaan. qola waxay leeyihiin ciisa يا إلهي سيده هالكن وكله المسيح إن الله هو المسيح ابن مريم إلهي وابا عيسى قيب أي إلهين قارك لنا وحي ليهين ثالث ثلاثة صدح بو صدح يا إلهي وإلهني ماذا صدح ككوبا أنا هراي نص أرجني قارك لنا waxa ay sheegayaan ciise iyo ilaahay iyo ruuxul qudus ala qariima thalatha taahrum bay ku dhawday intaas oo dhan waxay ka turjumayaan waxay wadaan inuu baadil yahay baadilnimadiisa cadaynaysa kol hadii asalkii iimaanku aan la isku waafaqsanaynba. waxa rabbi uu tilmaamay subxaana arrimo si cad u sheegayo aqli iyo cilmi ba ah inaanu nabi ciise ilaahnimada meel la ka soo galin ilaahnimada dhabtaana allah ilaahay baa kaligii iska leh arrimahan aan la diidi karayn baa u daliila ta u horeysa waxa weeye nabi maxamed oo la dood lama doonayo qofku haddii hadalla xunxun oo gaalnimo ah lagala hor yimaado inuu dido oo uu caroodo lama doonayo laakiin waxaa la doonayaa inaad dadka la doodaad qanciso ilaa ammaanaad sidaa kaa gaalka ah ee afxumada wada ee ilaahay afxumeeye xadgudbay
adaa la doonayaa cudurka haya inaad ka saartood la doodo sidaasuu ahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam sidaasuu qur-aankuna ina baraya hadalkii u xumaa bay ku dhawaaqeen oo nebi ciise ilaahay ah haddana nebiga lama odhanin iskaga tago ka dhaqaajiya waxa layla dood qul baa lay qul sidaa ku dheh oo sidaa ku dheh oo sidaa ku dheh oo hadday iyagu qanci waayaan dadkay duufsan lahaayeen ka reeb arrimaha caddaynaya ilaahay waxaa ka mid a faman yamliku min allaahi shay-a in araada an yuhlika almasiixa bna maryam wa ummahu waman fi lardi jamiica cid wax yeeshaa ama dili kartaa ama halaagi kartaa waa ilaahay maaha ciise maaha hooyadii maaha cid kale cidda cid wax yeeli kartaa waa ilaahay haddaba nebi ciise iyo hooyadii oo ilaahyaal ku sheegteen iyo dadkan adduunka ku nool oo dhan hadduu ilaahay doono inuu tallaabo ka qaaduu baabiyuu halaago ama dilo bal yaa hor joogsanaya marka macnaheedu waxa weeye ciise waxba iskama celin kara hadduu ilaahay doono inuu waxyeeleeyo maryam waa la mid dadka caalamka jooga oo dhami waa la mid marka ka dadka nooleeye ee dila ayaa ilaahay ah waa tii namruud uu ka hor yimi markii uu nebi ibraahim yidhi ilaahay waa ilaaha waxna dila waxna nooleeya gaalkaa namruud la odhan jirayna wuxuu ihi ana uxyi wa umiid anaaba wax dilo wax nooleeya in yar buu ku fashilmay qoraxduun bal hadda qoraxda intaan geeriya nololba la gaadhin bal hadda yaro kala wareeji buu halkii ay saaka ka soo baxday galabta ka soo saar fabuhita aladii kafar marka ma odhan karaan ciisa wax dilayo hooyadii baa wax dilayso saasoo ilaahay bay iska difaacayaan ma taalo waa daliil daliilka labaad waxa weeye walilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa baynahumaa tan cidi ilaahay kuma haysato oo sidaana tusaalaha iminka aynu sheegaynay dee kii yidhi anigaa wax dila waxna nooleeya qoraxdaa shardi looga dhigay kownka abuurkiisaba lama odhanine bal qoraxda uun isbedel ku samee baa layidhi soo bixiddeeda iyo dhiciddeeda wuu ku samayn kari waayey nebi ciisena waa saas oo kale hooyadiina waa sidaa cid kastoon gacan ku lahayn caalamkan socodsiintiisa ilaahnimo ma leh arrinta saddexaadna waxa weeye yakhluqu maa yashaa yakhluqu maa yashaa waa adiladii caddaynaysa ciise inaanu ilaahayna ahayn ina ilaahayna ahayn ilaahnimana waxba ku lahayn ilaahay baa wuxuu doono abuura oo ciiseba wuu abuurayoo hooyunbuu ka keenay iyadoon aabba jirinba nebi aadanba wuu abuurayoo aabbiyo hooye la-aan buu abuuray arrinta afraad allahu calaa kulli shayin qadiir cid kale oo la odhan karo wax walba way kartaa oon ilaahay ahayn ma jirto subxaana wa tacaala markaa sidaasuu qur-aanku inoo barayaa inaynu ula doodno mushriga iyo ka markaa diintiisii ka been sheegay iyo ka mulxidka ah mulxidka markaa aan isagu kuba doodaya ilaah ma jiraba intaba doodaasaa lagu qancinayaa oo qofka muuminka ah waxa uu leeyahay laa ballaadhan buu leeyahay aqoon iyo wuxuu leeyahay ammaano iyo awoodu cid ku xujayn karo nimankii yuhuudeed iyo nasaaro labadii qoloba way ka sii dareenoo waxay idhaahdeen naxnu abnaau llaahi wa axibbaau gaal ma xishoodo marka xishood la-aan la eego waxay isugu urureysaa gaal xadiid alqudsi ilaahay wuxuu ku yihi saxiixo nebigu ilaahay ka warinayo ina bani aadam wuu i beeniyey waanu i caayay beenintuu i beeniye waxa weeye wuxuu sheegay inaanan khalqigii dhintay soo noolayn karin hadda iyadoo markii horeba ilaahay u nooleeyey caaydu i caayayna waxa weeye inaan leeyahay ubad iyo oori arrin weyn wey way ka sii dareeno waxay dhaha annagaaba ilmo ilaahay ah adigu ma ciisaad sheegaysaa cuseyr baad sheegaysaa soo dhaaf annaga laftiga yaa naxnu abnaau llaahi wa axibbaau culimada qaarkoodna waxay soo qadaraan mudaafo waxay dhahaan naxnu atbaacu abnaa'i illaahi wa axibaa'i inamadii ilaahay oo ciise iyo cuseyra kuwii raacay baanu nahay laakiin wax kalifaaba ma jiraba inaynu mudaaf soo qadarnaa wax kalifa ma jire ila gaalnimo nimanka lagala carari maayo erayadaa horeba waa gaalnimo gaalnimaduna wax la kala doortoo la kala dheego ma leh marka kufrigii hore sheegeen unbuu kana la mid yahay marka wuxuunay u taagan tahay inay leeyihiin shacbullaahi almukhtaar annagu shicibkii ilaahay uu doortay baanu nahay dadka kalena waxay u abuurayin inay annaga noo adeegaan ama addoommo noo noqdaan ama na adeecaan ay amarka iyagii noqdaan annagaaba ilmo ilaahaya kuwuu jeclaana waanu nahay
halkaasi taaganti hadaarintii lagama tanaasulin oo arrimahan u qaadan fikrad mar jirtay inay ahayd oo meesha ka baxday yahuudi halkaasi taagan oo imika Israa'iil tiireed baa la hirgelinaya Israa'iil al-kubra baa jirta Israa'iil ta weyn la ballaarinayo ilaa hadda waxay ku jirtaa wadanka kaliya adduunyada aan xad balahayn Soomaa wadamada caalamka waxa la yiraahdaa marka wadan la sheegayo ama dal waa inuu leeyahay distoor iyo dadkii ku noolaa meesha distoorka qortay iyo dal xad leh ilaa Israa'iil mooyaan xadkeeda maxaa loo sameyn waayay waa la durkiyaana banaan la jiifiyaana banaan Soomaad maqan ku qabso ku qadi meyside muska xagaasa loo durkinay xaga Masar baa loo wadaya waa min an-Niil ila al-Furat baa la yiraahdaa ilaa waxay soconaysaa Masar iyo Ciraaq ayay soconaysaa marba in baa lagu darayaa kuwa imika carabta u nacamlaynaya baritan intiisa lagu darsanaya marka Falastiin la liqo saasay u sii soconaysaa ilaa Iran bay soconaysaa marka waxaynu uga jeednaa waa dadka halka aaminsan waa nimanka yiri laysa calayna fil ummiyiina sabiil nimanka aan waxna qorin waxna akhriin annagu haddaanu dilnoonu dhacno laysa calayna fil ummiyiina sabiil wadana lagu ciqaabaa ma jirto ilaahay nagu qabsan maayo noona caroon maayo wax dhibo naga soo gaaraya ma jira dadkooda iyo dalkooda waa noo xalaal quraanka taa inoo wariyay aymada qaarkood waxay tilmaamaan ummiyiinta waxa looga jeedaa ma siwaahum cidii iyaga ka soo hadhay carabta ugu dhaweedo ummiyiinta lagu sheegay uune laakiin dadka iyaga ka soo hadhay oo dhan saasi waa misayn doodiba hadaba lagu bilaabaya ha caroonino ha cararino ha oran ruux maxay ku dhawaaqay waxay naga kaxeeya laakiin qanci iyaga iyo cidii kala qanci lahayd baqul waxa tidhaahdaa waa usluub at-talqiin quraanku wuxuu ina barayaa talqiin buu inoo sameeyaa sidaade oo sidaade oo sidaade oo sidaade qul waxa tidhaahdaa falima yu'adhibukum bidunubikum wa mid walaa muxuu idinku cadaabaya dambigiina ilaa wixii dambi baa gashana waa la idin cadaabay maxaa la idin cadaabay talo waa mid bal antum basharun mimman khalaqa ma tihidin ilma ilaahay bani aadamkum baa kamitiin abuuray yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha dadka baa kamitiin haduu doonana ilaahay uu cadaabay haduu doonana uu dhaafayo walillaahi mulku samaawaati wal ardi wama baynahuma iyana waxay sheegaysaa mar haduu ilaahay leeyahay samooyinka iyo dhulka iyo inta ka dhaxaysa muxuu bad uga baahan yahay adaa lagu weydiiyay wadka waxa loo dhalaa ha ku taageero adduunka ariniya adduuniya awood waxa kugu beeriyo aakhiraha ku shafaaco qaado baahiba ubadka loo dhalaaye tiwaaba karo wax waliba isaga gacantiisa ku urureene maxuu uga baahan yahay wa ilayhi al-masir aakhirana isaga marti loo yahay masirku halka loo noqonayo waa ka arimahan oo dhan waxay sheegayaan waa wixii aad ku doodi lahayd oo intan oo dhan hadii aanay waxay kaga jawaabaan jirin laabudda an yastaslim wa musallamaat kaawan isla waafaqsan hadaba isdiiba waxa markaa tawjihaadka halkan aynu ka aragnay وصف النصارى بالكفر حكم شرعي قضى الله تعالى فلا سبيل للاستخفاء به حكم كنمنك لغو شيغي إنيهين نمن قالا لقد كفر الذين قالوا إنا النصارى إلهي باكو حكمي حكم كا مركا وحين uga baydhna ma yaalo oo imika waxay yiraahdaan ha oranina gaalo مسلمين قالها أورانينا واحد هذا المسلمون وغير المسلمين مسلمين يكوا آن مسلمين تأهين لكن إرجع قال تنفير هي فردين باكو شريه لما كافرديننا أيه كلين كوا قلبك كجلين مركا واحد لاقى عرارة مياله إلهي بس وحق سيدو شيء نار باكو شرتو قد التحقيق أيد باكو شرتو لما كهذا الكاش جاي يري عيسى أيها إلهي رب نما وقال والله وقال أبو إلهي قل يا أيها الكافرون إلهي بابا أبو يعرو باقا لا أحد يدافع إرادة الله تعالى لأنه المالك لأمر الوجود كله مركو إلهي وحطانه إذن مهر جوك سنكرتو ساد رادد با إلهي ورب الأنوغو هدان دونو معكوة عابدان إنان تلابك قادون وحكو فليا يا إيغا هر جوك سنة يا عدنا با وارين عطينا يسا إله نباديس
أفيليق بك إذن أن تتوجه إلى غير ذلك دغن haddaad awoodihii ilaahay aragto iyo ilaahnimada dhabtiina keligii ku aruurto miya habboonta weeyi inaad ciise ku warwareegtood ilaahnimo siisa iyo cid kale maya ma habboona ilaahay baa ku qanciye subxaanahu wa tacaala naxnu abnaaullaahi wa axibaahu bay yidhaahdeen waxay lahayna uhi qul falima yucadibukum bidunuubikum waxay u taagan tahay alxabiibu yascaa ilaa irdaa'i maxbuubi fakayfa yaddaci حب مع من يسعى إلى سخطه قفك عدش عليه وحو اسكو دايانو رالي قليو مركا نمان كاني هدي أي شاكتان إنو إلهي تشعلي هاي محاي رالي قليو هاي إلا وحي نوارك إنا إنا يتاقين إنا إلهي كعريسيان إنا إلهي كعريسيان بي يتاقيهين تاسي وحي علامة تهي إنا إنو إلهي تشعلي سبحانه وتعالى الحبيب لا يعذب محبوبه إلا إذا استحق التعذيب بامتناعه عن الواجب قفك تشعلي مع عذابه هدا أوبد كيسيتهن محيدين عذابه waxay cadayn u tahay mar hadii yahuudiya nasaarada doofaariya daayare iyo laga dhigay khalqi la bedelay ilaahayna cadaab uu yabohay calaamad waxay u tahay inaan caruurtiisii ahay ilaahayna caruur balaha subhanahu wa ta'ala لو حلي محيدين عذابي عيدنا عرورتي هذا ما عذابت عيدنا عرورتي هذا ما عذابت وعلامات عطيسي إن إذا عرور إلهي وهين كل البشر عند الله سواء لا يتفاضلون إلا بالتقوى إلهي أكتيس خلق قوي سميهين الله كعبس بإلهي يقولك لدوي وحب ترسيماء يا وح أبضا يا وح أهل نماء إلهي أطوامها كبر حيث وأرنت كجواب بل أنتم بشر ممن خلق وابورون أيوم كتير سنتهين خلق إلهي وابورين ولا يقانا وحي إلهي يقول لوين ووالله كعبس إن أكرمكم عند الله يتقاكم هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم جنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى مركة التقوى دينا ما هيسان تاسينا هالكاسيكو هاردي الغفران والعذاب بمشيئة الله وبأسبابهما فاعمل بأسباب النصر والغفران دم بدافك يا عذابك لبضو بقى عنت إلهي بكتشران لكن سببي لي عدو عذاب يا أنا سبب أيكو عذاب يا عدو دم بدافك يا أنا سبب مركز هذه سببته إلهي وكو دم بدافك إلهي بأوحد سبحانه وتعالى آيات داود بيسي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بالله صعته هو عذاب يا إسقى دوني هو دم بدافع يا إسقى دوني لكن أسباب أجرته مشي هذه سؤال أجرته هذا السبب لقوا عذابي كان هي السبب كان لو دم بدافع باجرا كل الخلق سائرون إلى خالقهم من أقبل منهم ومن أدبر لكن يا راحة المقبلين ويا ويل المدبرين خلقك أولا إلهي بيكو صعدانه ومدنا إلهي ما ويدارنا يا آخر حقي سيو صعدانه قفنا قف فرح دونا ويا قفنا قف مرقون دونا سيدا ساير هاي كسوق جبجبي سبحانه وتعالى وإليه المصير ولقيت بها مرنطات قاربها لأن قال واحد دونا يساشى قتاه مرون بيدتك إلهي سر تاجي دوران بدنا ولا فرحين بدنا نحدنا أنك لقوا الله يبقى كل عداد والله سبحانه وتعالى